gabadhan inta aan la dilin ka hor waxay duubtay muuqaalkan ay ku sheegtay in la dili doono laakiin weli cid og ma jirto sababta loo dilay iyo meesha meedkeeda lagu qariyay. waxaan maanta idinla wadaagi doonaa sheekada Susan Powell oo noqotay sheeko caalamka ka yaabisay, qorshe dil oo ilaa maanta raadkiisa la helin. ka hor sheekadan fadlan nagu dhiirigeli subscribe si aan u soo gudbino sheekooyin xiiso badan oo dunida ka dhacay. like-na sii dheh muuqaalkan haddii aad xiiseynayso sheekooyinkan oo kale, commentiga nagula wadaag fikirkaaga. July 29, 2008 hooyo 2 caruur dhashay oo la yiraahdo Susan Powell ayaa muuqaal ka duubtay hantida taalay gurigeeda. Susan markaas waxa ay joogtay dalka Mareykanka, gobolka buuraleyda ee lagu magacaabo Utah. muuqaalkan waxay u duubtay si haddii lacala ay wax ku dhacaan, kadibna waxay duubtay muuqaalkan. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. waxay tiri waxaan ahay Susan. waa July 29, 2008 saacadda waa 6 saac iyo bar xilliga buuraha. waxaan hubinayaa inaan ka tago xog dhameystiran haddii ay wax gaaraan ama qoyskayga ay gaaraan si hantideyda loo diiwaan geliyo. waxaan rajaynayaa in wax walba ay hagaagaan oo aan farxad ku wada noolaano. muuqaalkan in la duubo fikraddaas waxaa lahaa Susan qareenkeeda, maadaama qareenka uu ka cabsi qabay in ninkeeda Josh uu iibsado hantida Susan qaar ka mida, maadaama Susan ay haysatay qaybo ka mida hanti qaaliya sida dahab iyo diamond oo kale. Susan iyo Josh guurkooda waxaa ka jira dhibaato weyn, waxayna saaxiibadeed u sheegi jirtay in ayada iyo ninkeeda Josh aysan wax nabad ah dhex oolin. tani waa alaab la soo iibiyey sanad ka hor. Home Depot ayaana lagu soo iibiyey iyada oo lagu iibiyey kaarkayga deenta. Josh wuxuu iibiyey alaab badan, kadibna wuxuu galay deen, kadibna wuxuu ku soo iibsaday kaarkayga deenta. waa laambad qurux badan, waa qalab loo isticmaalo in lagu gooyo alwaaxyada. waxaan haystay silsilado, katiinado dahab iyo diamond ka samaysan, laakiin ma aqaano qiimaha ay joogaan inta ay la egyihiin. kuwani qaar waa uu jabiyey markii uu carooday. wuxuu sidoo kale daadiyey DVD-yadeeda oo dhan. inkasta oo Susan kala sheekaysata qareenkeeda inuu raadiyo fursad kale oo ay ku kala tegi karaan ayada iyo ninkeeda, waxay ku wada noolaayeen sidaas ilaa 2009. kadib sanad iyo bar, maalin ay bishu tahay 6 December 2009, Susan waxay tagtay kaniisadda iyada iyo wiilasheeda Charlie iyo Baden. qof daris ah ayaa soo booqday. booqashada markii uu qofkii dariska yimid waxaa loo sheegay inay Susan maqan tahay oo ay 5tii galabnimo baxday. habeenkii markii la gaaray, Josh ayaa la sheegay in wiilashiisa uu u waday safar tuurka ah. xilli roob fara badan oo dabeelo iyo duufaan wata ay socdeen, waxaa la sheegay inuu aado goob xayawaanada duurjoogta ah lagu xanaaneeyo oo la yiraahdo Pony Express Trail. sida uu Josh sheegay, Susan waxa ay joogto guriga oo ay ku nasanaysay maadaama ay daalaneed. maalin kadibna qoyskeeda iyo saaxiibadeed waxay dareemeen in Susan ay maqan tahay, kadibna waxa ay wargeliyeen booliska. markii Josh uu ka soo noqday safarkiisa duurka ayaa wiilashiisu waxay sheegeen in uu markii uu tagayay habeenkii ay xaaskiisa si nabad ah ugu nasanayso guriga, isla markaana aana garanayn wax ku dhacay. markii ay booliska baareen guriga lamaanaha ee ku yaala gobolka Utah, wax calaamad ah oo muujinaysa faldambiyeed dhacay lama helin. laakiin dhacdooyinkan soo kordhaya ayaa ka sii daray. baaritaanka gudaha khasnada Susan oo yaalay bangiga ay ka shaqaynaysa booliska, waxa ay ka heleen warqad dardaaran ah oo ku qorneed arrin aad u naxdin badan ayay ahayd. Susan markii ay qortay, haddii aan dhinto waxaa laga yaabaa in aan shil ku dhiman. 10 maalin kadib markii la waayay, booliska waxay ogaadeen in Josh uu bilaabay inuu la baxo lacaga keyd ah oo loogu talagalay qofka markii uu howlgab noqdo, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay qofka ugu weynaa ee looga shakisan yahay maqnaanshaha xaaskiisa. markii laga soo tago warbixinada aan fiicnayn ee ka bixinayeen dadkii qaraabada ahaayeen iyo saaxiibadii, waxaa si cad Josh uusan marnabo u muujin dadaal dhab ah oo uu ku doonayo inuu xaaskiisa la raadiyo dadka raadinayay. intii uu socdo baaritaanka, booliska waxay wareys ka qaadeen labadii wiil ay dhaleen lamaanaha, laakiin labada wiil aad ayay u yaryaraayeen oo waxba ma aysan garanin. laakiin waxay sheegeen in safarka ay ku tageen diyaarad. taasna waxa ay booliska murugo gelisay maadaama aysan helaynin wax caddeyn ah ama wax raad ah. Josh iyo wiilashiisa waxay u guureen gobolka Washington, laakiin dowladda waxa ay ka reebtay wiilashii intii baaritaanka uu ku socday Josh, waxaana laga qaaday carruurtii. dowladdu waxa ay geysay meel carruurta lagu xanaaneeyo, laakiin markaan sheekada way ka sii dartay.
bishii Febraayo 2012 laba sano kadib maqnaanshaha Susan, shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa Josh waxay u keeneen wiilashiisa iyadoo la qorsheeyay inay noqoto booqasho lagu ilaalinayo. Isla markii ay imaadeen shaqaalaha gobolka, Josh waxa uu xareystay labadiisa wiil waxaana albaabka ka soo xirtay shaqaalaha, kadibna gurigii dab ayuu qabadsiiyey. kadib musiibadaas naxdinta lahayd ee dhacday, booliska waxa ay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan Josh walaalkiis iyo aabihiis. Booliskan waxa uu caddaatay arrintani inuu ka dambeeyay Josh. laakiin taas waxa ay ka sii dartay markii 2013 uu isdilay Josh walaalkiis Michael. 10 sano kadib, aabaha Susan waxa uu ku guuleystay dacwad uu ku qaaday gobolka Washington isagoo helay 100 milyan. waxa uu ku dacweeyay inay ilaalin waayeen carruurta uu awoowaha u yahay. waxa uu qayb ka mid ah lacagtaas siiyay meel lagu xanaaneeyo carruurta lagu haayo dadka qoysaskooda isdagaalay ama rabshadaha faamiliga ah ka dhex dhacay. Susan muuqaalka ee duubtay ee muujinaya hantideeda waxa uu helay falcelin kala duwan. Susan markii ay tiri muuqaalkan waxa uu duubayaa just in case inay wax igu dhacaan, waxay dadka isweydiiyeen haddii ay hore u ogeed in ninkeeda sameyn karo waxaan iyo haddii kale maxay u baxsan weysay ama ay u dacwey weysay. Sanadihii la soo dhaafay, aabaha Susan waxa uu aaday meelo loogu tilmaamay in gabadhiisa lagu qariyay, laakiin ilaa iyo hadda meel run ah oo gabadhiisa lagu duugay ama lagu aasay ma jirto. raad walba oo la helayna waxa uu noqday been. Susan sheekadeeda ilaa iyo hadda meeshii lagu qariyay ama meeshii lagu aasay ama cidii dishay waa qarsoodi, welina waa la raadinayaa. 15 sano kadib, cid ogaata ma jirto Susan sheekadeeda saxda ah ama qofkaasi meesha uu ku aasan yahay. fadlan haddii aad jeclaan lahayd sheekooyin sidaan camal ah inaan soo badino, nagula wadaag commentiga, subscribe-tana ha naga ilaawin. mahadsanidin.